milyaneerka ayaa aasaasaha hay'adda Microsoft Bill Gates waxa uu gacanta ku hayaa saxaro ku jirta dhalo xilli uu maanta ku sugnaa magaalada Beijing. Waxa uu khudbad ka jeedinayay xaflad lagu soo bandhigay suuli cusub oo casri ah oo aan biyo u baahnayn. Hay'adda samafalka Bill and Melinda Gates ayaa ku qarash gareynaysa adduun lacageed gaaraya 200 milyan oo dollarka Mareykanka. Cilmi baaris lagu sameeyay suuligan taasi oo qaadatay muddo 7 sano ah. Waxa masraxa lagu soo bandhigay agab loogu talagalay nadaafada kuwaasi oo baabi'inaya bakteeriyada khatarta ah loogana hortagayo cudurrada faafa. Agabkan ayaa sidoo kala saaraya saxarada iyo biyaha suuliga. Waxaan dhihi karaa 10 sano ka hor weligay kuma fikirin inaan wax badan ka ogaado saxarada, ayuu yiri Bill Gates asagoo kaftamayay intii lagu guda jiray munaasabada. ganacsadahan ayaa waxa uu furay xaflad 3 maalmood soconaysa taasi oo ka dhacaysa dalka Shiinaha. Mashruucan ayaa looga goleeyahay isbedel lagu sameeyo suuliga. Mr. Bill Gates ayaa agabkan la soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay horumarkii ugu muhiimsanaa ee la gaaro ku dhawaad 200 oo sano. Madaxa hay'adda Microsoft ayaa dhalada saxaradu ay ku jirto ee dhinaciisa taala waxa uu ku tilmaamay inay ku jirto 200 oo trilyan oo rotavirus ah, 200 oo milyan oo bakteeriya ah iyo sidoo kale 200 oo kun oo ukumaha aan ishu qaban ah. Sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay ee magaceeda WHO loo soo yareeyo ilaa 2.3 milyan oo qof oo dunida ku kala nool ayaan weli haysan adeegyada aasaasiga ah ee nadaafadda, waxayna sababi kartaa arrintaasi cudurro halis ah oo ay ka mid yihiin daacuunka, shuban biyoodka iyo sandariyada.